kuwee tobanka atoore tobanka atirish lacagaha ugu badan filimada ku sameeya waqti xaadirkan 2021 shabakadaha ka soo baxa gudaha Hindiya waxay fursad u heleen inay baaritaan dabagal ku sameeyaan xogaha naga qarsoon ee u gaarka jilayaasha Bollywoodka sidaa darteed waxaan idin haynaa warbixintii ugu dambeysay ee la soo daawacay kuna aadan tobanka atoore tobanka atirish Bollywoodka ka tirsan kuwooda lacagaha ugu badan filimada ku sameeya waqti xaadirkan joogo waxayna xogtan ku saleysan tahay 12 bilood ugu dambeysay saxiixda ay jilayaasha Bollywood ka sameeyeen laguna jaangooyo sicirkooda suuqa ama lacagaha ay dalban karaan halkii filim ay sameynayaan hadaba daawadayaasha qiimaha badan intaan gudagalna barnaamijkeena waxaan iga codsanay waxaan sameeyay janaal cusub oo ugu magac daray Mootaleyan Films waxaan soo gelin doonaa heesaha Hindiya oo turjuman sidoo kale barnaamijyo xiiso badan ay kala socon doontaan fadlan waxaan iga codsanay subscribe saartan linkiga comment koodan link ku qaban doonaa fadlan waxaan iga codsanay channelkaas kalena subscribe noo saartaan intaan gudagalin barnaamijkeena daawadayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada channelkeena fadlan haday tahay markii kugu horeysay soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb barnaamijkeena waxaan ku bilaabi doonaa tobanka atoore waqti xaadirkan lacagaha ugu badan filimada ku sameeya haddaba atooraha maxaa ka dhigi karo inuu ka mid noqdo kuwa Bollywood lacagaha ugu badan ku sameeya aflaamta hoganti ahaan midaasi waxay ku xiran tahay sida atooraha aflaamtiisa box office-ka ganacsi adag kaga sameeyaan haddii filimadiisu guulo waaweyn oo xiriir ah gaaraan waa hubaal lacagaha uu dalbanayo sare inay u kacayaan sidoo kale arinta waxay noqonaysaa cagsi haddii filimadiisu guuldarooyinkooda bataan lacag yar ayuu filimada ku sameyn doonaa sidoo kale atooraha dooqa aflaamta uu dooranayo way ku xiran tahay lacagaha uu dalban karo haddii saxiix filmo iska miisaanad yar oo fariinta iska sahlan tahay lacagta badan ma dalban karo sidaa darteed mashaariicda atoorayaasha saxiixanayaan si ay u kala miisaan weeyeen iyadana waa mid sababi karto in la kala lacag bataan sidaa darteed atooraha waa inuu si taxadar ku dhihan isaga eega doorashada aflaamta kuwa box office-ka saaxiibka la ah ganacsi ballaaran sameyn karaan iyo kuwa aan ganacsi badan sameyn karin oo fariintooda xadidan tahay halistooda badan tahay haddaba tobanka atoore ee sanadkan 2021 lacagaha ugu badan filimada ku sameeyaan waxaan xogtan lagu saleeyay atooraha lacagaha ka soo galay aflaamta box office-ka ee tiyaatarada laga daawaday sanadka ugu dambeeyay iyo kuwa aflaamta sida online-ka digital-ka laga daawaday ay xogtan ku saleysan tahay atooraha kaalinta koowaad ku jiro Mega Star Salman Khan halkii filim wuxuu ku sameeyaa 60 karoor u dhiganto 7.9 milyan oo doolarka Mareykanka ah waliba sicirkiisa xawaari hore kuma socdo markii loo eego aflaamtiisa ugu dambeysay heerka laga filayay inay gaari waayeen laakiin sanadkii laba filim uu sameeyay iyo waliba hogaamiyaha Bollywood inuu yahay ayuu ku dalban karaa lacagahan ugu badan atooraha filim ku sameyn karo waqti xaadirkan Bollywood atooraha labaad waa Amir Khan halkii filim wuxuu ku sameeyaa 50 karoor u dhiganto 5.9 milyan oo doolarka Mareykanka ah inta badan filimada lacagaha toos ah kuma qaato sameeyntooda nidaamka faa'iido wadaaga ayuu adeegsadaa sida daraateed haddii aflaamo badan uu sameyn lahaa sicirkiisa halbeega 50 karoor la siiyo hubaal ahaan uu ka sareyn lahaa waqti xaadirka atooraha saddexaad waa Akshay Kumar halkii filim wuxuu ku sameeyaa lacag u dhow 45 sicirkiisa si xawaare ah ayuu ku socdaa haddii guulihiisa xad dhaafka uu sii joogteeyo la yaab noqon mayso inuu noqdo atooraha kaalinta koowaad ku jira Bollywood lacagaha ugu badan filimada ku sameeya atooraha afraad waa Shah Rukh Khan halkii filim wuxuu ku sameeyaa 40 karoor inkastoo filimadiisa ugu dambeeyay ganacsi ahaan heerkii laga filayay aysan gaarin haddana wali sicirkiisa suuqa waa mid adag walow waagi hore atooraha koowaad ama labaad lacagaha ugu badan aflaamta ku sameeyo ahaan jiray haddii uusan soo rogaal celin qiimihiisa sicirka suuqa hoos ayuu u sii socon doonaa atooraha shanaad oo Hrithik Roshan halkii filim wuxuu ku sameeyaa 35 karoor u dhiganta 4.6 milyan oo doolarka Mareykanka atooraha kaalinta lixaad ku jira waa Ranbir Kapoor halkii filim wuxuu ku sameeyaa 30 karoor u dhiganto 3.9 milyan oo doolarka Mareykanka ah kadib Sanju markuu balagbaster u noqdo wax film ah ma uusan la imaanin sicirkiisa sare uu kici lahaa balse isaga ayaa fadhiida oo labadii sanaba ugu dambeysay wax film ah ma uusan la imaanin haatan waxa u diyaarsan filimada Shamshera iyo Brahmashtra oo la daawan doono dhamaadka sanadkan atooraha toddobaad Ajay Devgan halkii filim wuxuu ku sameeyay 20 karoor u dhiganta 3.3 milyan oo doolarka Mareykanka ah superstar-kan lacagahan ka badan uu dalban karaa balse sicirkiisa isaga ayaa diidan inuu hore u socdo maadaama saddexdii film ugu dambeysay guulo waaweyn gaarin sida Dide Biyarde iyo Tanhaji oo soo saare ka ahaa sidaa darteed filimadaas lacagaha sicirkiisa suuqa ka badan ayuu ka helay maadaama uu soo saare ka yahay atooraha sideedaad waa Amitabh Bachchan halkii filim wuxuu ku sameeyaa 20 karoor u dhiganta 2.6 milyan oo doolarka Mareykanka ah
waa 77 jir weli sicirkiisa suuqa sareeyo aflaamta dooro hogaaminaha ka qaato waliba lacagtan 20 kor wuxuu ku qaadanayaa sameynta filimka Baramaster ee Rambari Aliya la jilayan soo saaran ka yahay Karan Johar lana daawan doono dabayaaqada sanadka 2021 hadii suurto gasho tiyaatarada la furo atooraha sagaalaad waa Ranveer Singh halkii filim wuxuu ku sameeyaa 15 koror ilaa 20 koror lacag u dhaxayso lacagihii inta way ka badanayaan lahaayeen hadii kadib guulihiisa badmafaad Simba iyo Guuli Boy balse isaga ayaa isxadid oo hal sano bar waqti ah galiyay filimkiisa 83 hadii mashaariic kala duwan uu sameyn lahaa sicirkiisa kor ayuu tooraha 10 Saif Ali Khan halkii filim wuxuu ku sameeyay 15 koror u dhiganta 1.98 milyan oo doolarka Mareykanka ah dhanka digitalka ayuu haysta awood ahaan sidoo kale filimkiisa ugu dambeeyay Haji Blockbuster ayuu noqday sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan markaan waxa soo qaadan doonaa 10 atirish lacagaha ugu badan aflaamta ku sameeyaan haddaba maxaa ka dhigi kara atirishada inay lacagaha ugu badan filimada ku sameeyso si sahlan guulaha aflaamteeda ayaa ka dhigi kara lacagaha ugu badan inay dalban karto sidoo kalena atirish walba aflaamteeda guula gaarin hadba saameynta ay ku leedahay ay ku xiran tahay lacagaha ay dalban karto waxa dhici karta atirish film Blockbuster noqday sameysay inay ka suuq weyn sareyso atirish film hit ah noqday sameysay sababtan waxay tahay kaalinta ama awoodda ay ku leedahay mashruucaas guuleystay sidoo kale atirishada sicirkeeda inuu sare u kaco waxa ka caawin kara filimada ay kaligeed hogaamiyaha ka tahay hadii uu guulo waaweyn gaaro markaas dalabkeeda wuxuu noqon karaa mid sareeyo haddaba 10 atirish ee waqti xaadirkan lacagaha ugu badan filimada ku sameeyaan sidoo kale xogtan waxa lagu saleeyay lacagaha aflaamta tiyaatarada laga daawaday laga kasbaday iyo kuwa sida online-ka ama digital-ka ah laga daawaday kaalinta koowaad waxa ku jirta Kangana Ronald halkii filim waxay ku sameeysaa 15 koror dhiganto 1.9 milyan oo doolarka Mareykanka ah waa atirish lacagaha ugu badan filimada ku sameeyso waxayna lacagahan ku saxiixatay sameynta filimada Tallevi iyo Dhakaad oo sanadkan gudihiisa la daawan doona waliba sanadkan dhamaadkiisa ayaa la daawan doona hadii xaaladda caadi ku soo laabato atirishada labaad Deepika Padukone halkii filim waxay ku sameeysaa 14 koror dhiganta 1.8 milyan oo doolarka Mareykanka ah filimka 83 sameyntiisa ay lacagtan adag ku qaadatay ka badan way dalban kartaa inkastoo dhankaas iyo Hollywoodka ay u badan atirishada saddexaad waa Priyanka Chopra halkii filim waxay ku sameeysaa 13 koror u dhiganto 1.7 milyan oo doolarka Mareykanka ah sanadkii hore ay Bollywoodka ku soo laabatay waxayna lacagtan adag ku qaadatay sameynta filimka The Sky is Pink atirishada afraad waa Kareena Kapoor Khan halkii filim waxay ku sameeysaa 11.5 koror waa lacag u dhiganta 1.5 milyan oo doolarka Mareykanka ah waxayna lacagahan ku kasbatay sameynta filmadeeda ugu dambeeyay sida Good News iyo Angariza Medium atirishada shanaad waa Katrina Kaif halkii filim waxay ku sameeysaa 11 koror dhiganta 1.4 milyan oo doolarka Mareykanka ah xidigtan sameynta filimada Surya Vanshi ay 11 koror ku qaadatay waana lacagihii ugu sareeyay abid ay filim ku qaadato sidoo kale kaalinta lixaad waxa ku jirta Sonam Kapoor halkii filim waxay ku sameeysaa 10 koror iyo bar 10.5 koror waa lacag u dhow 1.3 milyan oo doolarka Mareykanka filimkeeda ugu dambeeyay The Zoya Factor ay lacagtan waalidaha ku qaadatay hogaamintiisa atirishada Vidya Balan halkii filim waxay ku sameeysaa 9 koror bar waa lacag u dhow 1.25 milyan oo doolarka Mareykanka waxayna ku kasbatay lacagahan filimada ay kaligeed hogaamiyaha ka tahay inta badan inay guuleystaan atirishada sideedaad waa Shraddha Kapoor halkii filim waxay ku sameeysaa 9 koror waa lacag u dhow 1.1 milyan oo doolarka Mareykanka waa lacagaha ay ku sameysay filimada Chichori Saho iyo Street Dance sicirkeeda atirishada sagaalaad waa Anushka Sharma halkii filim waxay ku sameeysaa 8 koror waa lacag u dhow 1 milyan oo doolarka Mareykanka sicirkeeda hoos ay u dhacay maadaama dhabaanahan wax film aysan sameynin atirishada tobanaad Alia Bhatt halkii filim waxay ku sameeysaa 7 koror bar waa lacag u dhow 900,000 oo doolarka Mareykanka ah sicirkeeda sare ayuu kici lahaa hadii saxiix aflaamta badan ay sameyn lahayd waxaa halkaas inagu dhan barnaamijkeeni fadlan haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar muuqaalkan like saar waxay ka dhigan tahay inaad muuqaalkan faafinayso maadaama aad like saartay aragtidaadana comment nagu reeb muuqaalkan share. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.